annaka dumarka iyagu marka waxay qaateen dhaqankii dumarkii Canadian-ka ahaa oo ninku hadduu hadlo horta rag way wada dhufaanayeen waan idinku bushaareynaya xagga nin fayoomi ma jiro marka dumarka Canadian bay noqdeen marka gabadh baa waxay tiri odayga bay igu adadka ma sha Allah haye maxaa dhacay Soomaaliya markan joogay de waa taqaanaano ninku ku yar adag iyo dumarka Canada timi dawladda guri bay siisayo magaceeda iyo magaciisa way ku wada qortay check way siisayo lacag rabay u soo dhacdaayo magaceeda iyo magaciisuna way ku qoran yihiin caruurtana lacag baa lagu siiyaayo excuse me magaceeda ayaa lagu soo qoraa magaciisa laguma soo qoro Soomaaliduna way iska dhalan yar yarka Soomaalidan arag caruurta weyn dhalawan daadinaan sida digaaga islaanti marka way yara lacagaysatay oo ninkii de markay Soomaaliya joogtay ay ku oran jirtay war hooyaday baa timiye bal wax ii dhiib ama walaashay baa laga dhintayaan in yaro masruuf u diray ii dhiib sheekadii way isbedeshayo ayadii baa lacagtii hayso asagii baa leh bal ii dhiib in yaro ku soo shaheeyo asagii baa shahaadanaya waxa dhacday marka musiibada dhacday gabadhii marka way isla weynaatayba waana ninka masruufay tiri warday madbaxa gal bay tiri maanta waa arbacee waa maalintaadii waan kugu soo qorey madbaxa gal maana madbaxa gala maano hebela wanin geer jira waxay tiri war ama albaabka qabso ama madbaxa gal anaga tag buu yiri balaya madbaxa u gashay ma qorqadana hay wuu ka baxay albaabku qabsaday gabadhii marka ilaa 6 caruur ay haysa Soomaaliduna waxay ku xuntay markay gabadha ay furaan ama ay ka tagaan caruurtana way raaciyaan Soomaha yar yar kana waynu furraa gabigoodaba waxa dhacay gabadhii dhowr iyo 10 sanadood bay adkaysanaysa dhowr iyo 10 sanadood ayay ceebteeda qarsanaysay ilaa odaygii dabaday dhigtay aniga is xukumo bay leedahay gaari yaro waxay wadataa minivan ayada isu sarreysa caruurteeda ayada masruufta waxay isleedahay wadankii aqal ka dhiso caruurtii marka kuray miira noqoto de waa weynaaday caruurtii marka way iitimi waxay tiri caruurta igu caawi caruurta maxaa ku dhacay caruurtii waxay ka noqdeen laba mid sakhraana oo khamriga sida isku shubaya iyo mid noqday qowm luud oo qowm luud noqda Soomad garan laba waxa xeereeyay fanaal kala dhacay maxaan sameeyaa odaygii aynu soo lad qabanay way aynu soo celino odaygii dib loo soo celiyo odaygii waanu soo celinay dadka buufu ku jiro inta ka saaro buufka moogtay waanu soo celinay ilaa waxa weeye oday aan caruurtii ka maqnaa 12 sanadood iyo charger yar yarku odaygan guriga dhex taagan waa la yaabayeen hooyadiiba ku yiri who is this kani waa ay horta saytiri kani waa aabaha markaasuu xagu ku maqnaa inankii iyo inantii iyo inamadii iyo hablihiiba odaygiina ma arki karaan islamana fahmayaan isma arki karaan odaygiina waxa ku qufulan war fariiso hadii kale inaan waan karbaashi doonaa asaguna waxa uu ku leeyahay ma taaban kartid dawladdan aniga walayn booliis kugu yeero inaan god kugu toori waxa dhacday marka tarbiyadii meeshii way ka maqan tahay shabaabka yagi ma hablihii mise inamadii hablihii ilaahay wuu noo hanuuniyay oo hablaha waxa gacanta noogu haya hooyooyinka waayo hooyada Soomaaliyeed si walba ha waalato waxa ka dhaadhacsan wali waxa ka dhaadhacsan ninku meeluu ka soo bixi haska waasho
khamriya soo cabo cid ha soo dilo jeel ha soo maro in waxa soo xado ama tacliinta ku xumaad meeluu muu ka soo bixi inanta laakiin way ilaalinaysaa waxay isleedahay ceebteedu waa ceebtaada oo haddii berito ay soo uuraysato ama meel lagu arko cid albaabka isa soo taagaysaa ma jirto marka habliba committee waxaan hadday dumarku hablayaba iyo ibnaba committee lahaayeen umadu way noo hagaagi lahayd